howlgalkani ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ay ka sameeyeen tuulo hoos tagta deegaanka Janaal ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa yimid kadib markii ay ka wareeleen in halkaasi ay ku dhuumaaleysanayaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada Al-Shabaab. Howlgalka oo ay fuliyeen ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka Danab ayay ka sameeyeen tuulada Buule Xaaji oo hoos tagta deegaanka Janaal ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose. howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayay ciidanka waxay baaritaano dheeraada ku sameeyeen guud ahaan tuuladaasi Buule Xaaji iyo nawaaxigeeda. kumaandooska Danab oo si feejigan gudaha ugu galay tuulada Buule Xaaji isla markaana baaritaano ku sameeyay ayaa lahaa bartilmaameed gaar ah waxaana ay ku guuleysteen ujeedka howlgalka oo ahaa inay ka hortagaan dhagarta maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab u maleegayaan ummadda Soomaaliyeed. waxaana ay halkaasi ku dileen horjoogihii qaraxyada gobolka Shabeellaha Hoose ee Al-Shabaab u bilsanaa kaasi oo lagu magacaabo Ismaaciil Jiis iyo 10 maleeshiyaad oo la socday. xilligii ciidanka ay qaarijinayeen horjooga Ismaaciil Jiis iyo maleeshiyaadkii la socday ayay ku hoolanayeen dhagridda shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba ka galabsan, balse ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka oo kaashanaya shacabkooda Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan shirqooladii argagixisada gaar ahaan kii uu ku hoolanaa horjooga Ismaaciil Jiis iyo maleeshiyaadkiisa. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska ayaa kordhiyay howlgallada qorsheysan ee ay ku bartilmaameysanayaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab si ay uga hortagaan dhagar kasta oo ay u soo maleegaan ummadda Soomaaliyeed.